dee bishan waa bishan jabnay horta bishan waxa la yiraahdaa bishii orodka August baa la yiraahdaa mid kale oo cibaara haddaan meesha ka cadeeyo markii faqash la cayrshay SNM calan waleynaysi adiga canjeelada la dubay dumarka caalowe armaada lixliya gaari kara curadkii koodbuur isagana ciidanka waxa jibiyay maamulka maantana mar labaad inuu jibiyay ka yeelimayna dalka dekeligii ma xukumo ishadeeda barrig baa uga cadgeyn doona tabtii baa u dhacday way abwan 10kii August isu 10kii August bisheedii maalinteedu waa tii ay ciidankii dadka masaakiinta ah ee soo banaan baxay leeyahay ayagana buurta la dhigay culimada xidhay ee diinta ka caroodi wax kasto oo aqligu diidan yahay soo ku caan maaha say shalay haduu yiri calaashada fartaad ugu codeynaysay anaan kama aqbalo maamadii siisay caanaha ama nin hooyadii caasiyada duwaabal celiya yeel halkan maanta waxaan si kid soo la kulmay Abwaan Saleeman Boqor oo kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer ee hal-abuurka waliba kuwada ugu caansan Abwaan ku soo dhawow aad baan u dhaway walaal aadna wada mahadsantahay ciidanka Soomaaliland ay ku jabeen dagaalkii Gooja Cadde waxa ka soo wareegay muddo sanadkii bishii 8 bay ahayd madaxweynuhu inta soo dhan muu tagin jiidaha hore oo muu tagin si iminku tagay waxaad kale duu maca salaaminaya dadku maca salaaminaya dadku si maca salaaminaya isbedelkiina uu soo socdaa Riya Faisal baa iman hadaan wiigan la socon baalanay anigu labada xisbiye kale ma kala jeclay laakiin si ummadda Soomaaliland waxaan xal u arkaayo inuu Muuse dhaafo inay tahay xalka ugu dhow ee ummaddu ku badbaadi karto marka waxa kale oo aan doonayo inaan dadka fahansiiyo waxa jirta horta maamulka mise Soomaaliland waxaan diidanaa horta waa maamulkan qarriban ee foosha xun laakiin si Soomaaliland iyo dalkeena waan jecelnahay muwaadiniin baan rasmi wixii jabayna Soomaaliland ma ahayna maamulka jabiyay صح 10kii August na maamulka jabiyay Soomaaliland ciidanka 25kii August oo aan waxba u dhaxayn labada taariikhoodna isagana ciidanka waxa jabiyay maamulka maantana mar labaad inuu jabiyay ka yeelimayna dalka dekeligii ma xukumo farabadan oo sheegtay baa la arko si dhaba loo arkay gabagii cuuq leh bal bulshada xasuus niyo gabayga horta bishan August aan ku jirno mucjisooyin badan bay leedahay inta gabayga xilligan jiray waxay isla bishan u baxay August u baxay waxyaabihi aan ka tiriyay waxaan ka tiriyay 12kii August 2022kii markii dhacdadii dadkii dabadbaxayaasha ahaa burciya Hargeysa dawladdu aadka uga xasuuqday ayaan gabaygan tiriyay waxyaabiyan ku sheegayna sanadkiisa kulli horta waxyaabo badan baa laga arkay 12keedu waa ciidanka buurta la dhigay marka gabaygaasi wuxuu yiri nin waliba wuxuu caan ku yahay caarif lagu sheegay gabaygana rag baa curin yaqaan Ali ya Muuse sidii caalin iyo sheekh wada diinta ku xiroobay cilmiga aanu leeyahay nafluhu igu ciseeyay ma sacidib xun reebto bulshada cadanya gaarsiisa niman baa cod baas iyo u nool cirirka dhiilada ee caabuq laga bogsaday iyo rag baa aafas soo celiyay anna inaan murtida ceel ka dhuro caafimaad qaba Allah iyo cimaamado xilka calanka ay saaray cilmiga iyo quraanka iyo sunnaha amal samaan oo dhan waxyiga iyo cibaadada bishii nabiga loo canshay sallallahu alayhi wasallam ceeshka laga soomay iyo hadal cuwaaf oo dhan bayaha wuxuu la biliyay habeen caalamkii faayaa weys nuuraya waxaan dhashay caan barwaaqahay wax badan baan culaad taagan iyo caabuq diminayay wax badan baan tahriibaha ay cunay kaga cataabayay abdow waayo badan baan hidaha caydiga u sheegay wax badan baan cod dheer iyo codow waana curinayay wax badan baan cadrada quruxsan iyo caashiq ka hadlayay hadba waxaan cabiri jiray waqtigu camaladu keeno bal caawina murtida dhuga haddaan soo carcarsaday inta hore araar baa la yiraahdaa moog caam inan gumeed iyo waqtaas soo argaagtimay ee uraafiiqle iyo waxa la galay samankii cuuqlaaya xasuusaadaya hasuran haddaan caad ku saarnayna cirirkiyo mariiquna baryahan waa culoobeena cirka sare xidigihii fadhiyay yeeshacayn dariyo waxa kala calool gaa intii caw ku wada jiifto in sansaan colaadeed la galay wacadahay maanta handaraabkan culimada xidhay ee diinta ka caroodi wax kasto oo aqligu diidan yahay soo ku caan maaha naftooda canaantaan ibliis duul cumaamaday carradii iyo dalkood nabadabaad maandhar cugateena cugashada khaldane waa dambay ciriq xun reebtaaye cantar iyo aftaag ruux fircoon camaladiisii leh ciilqaba sandalad helay ilaa looma caal helo markay doqontu cudud yeelatiyo ciidan iyo baaxad cisho adagni soo gacan qabtay col u aloostaaye waxay cagaha goysaa intii caawisay shalay haduu yiri calaashada fartaad ugu codeynaysay anaan kama aqbalo maamadii siisay caanaha ama nin hooyadii caasiyada duwaabal celiya waxa jirta waqtiyada mar uu lahaa xitaa sidana systemkana wuxuu wada hooyaday baa igala talisay inuu talada hooyadii qaataan aad bay wanaagsaneeyay ma ogtay waalidka kaarnimada dad waalidka maqli weydo
mid kaloo cibaara ah haddaan meesha ka caddeeyo markii eeg mujaahid buu inoo sheegtaa de anigu garan maayo meeshanu dadka ku laayee raggii da mujaahidiinta waxna da waa dhaawac waxna way dhinteen waxna waa naafadee ninka mujaahidkaana taasuu sameeya mid kaloo cibaara ah haddaan meesha ka caddeeyo markii faqash la cayrshay ee snm calan waleynaysay adigaa canjeelada la dubay dumarka caalowe carmaadaa lixliya gaadhi kara curadkii koodbuur waxba yuu cabaari la fogaan caynka maasadu iyo cartaradaha la joogtiya hablaha calastu laynayso cishadeedaba rag baa uga cadgoyn doona tabtii bay u dhacday waayo abwan 10kii August isu 11kii August bisheedii maalinteedu waa tii ay ciidankii dadka masaakiinta ah ee soo banaanbaxay leeyay ayagana buurta la dhigay waxyaabaha ilaahay naga aqbalay bay kamid cishadeedaba rag baa uga cadgoyn doona rag baa ceelashu awday kani cuud ka fulin doona abaar caata hadhis iyo waqtiga cuudka laga dayrsho wuu bushaare curashada guyaal labada caynaan ciriya Faysal baa iman hadaan wiigan la socon marka gobigaas xuquuq lahaa de kulli waana la arko cishadeedana rag baa uga cadgoyn doona 11kii August dambe ayay dhacdadaasi dhacday